sanadkaana ma roob la-aan iyo abaartii baa nagu soo noqotay garan mayno waxaan samayno wax caloosha lagu cishto hataa ma hayno roob waa roobay khayrkii baa yidhi roob waa roobay khayrkii baa yidhi waxaana soo maray sanado badan oo abaar aad noo haysay laakiin markii roobkii yimaadayna waxaa waaye guryaha roobkani inuu galay guryaheena oo keliya isagoo waxba ku sameyn guryaha reer bani israa'iil waraamaanow adigu maxaad samaysay oo maxaan samayn karaa boqorkaygiiyo roobka meel walba ayuu galay webigiina waa fatahmay muuse ayaan la hadlayaa laakiin boqorkaygiiyo waxaan u oggolaanayaa inay guuraan laakiin keliya waa marka uu dhibaatada naga qaado sanadkan badarkii waa batay cuntadoo dhan waa baxaysaa haa meel la kala dhigaa lalayahay barwaaqadiiyo bashbashkii haa waxaa dhibaatada naga dulqaaday ilaaha muuse laakiin fircoon balantii ahayd inuu reer bani israa'iil ka guuraan meeshaan ma oofinin فرعون وقاجر فرعون وقاجر فرعون قاجر وعلاش القلية الله قاجو فرعون قاجو بقركين فرعون قاجا ندشي نسيب بقركين يا انت وعلاش القلية الله بقركين فرعون yimid boqorkaygiiyo beeralaydii ayagoo aad iyo aad ku ammaanaya waxayna diyaar u yihiin inay hadalkaaga maqlaan war maxay la qaylinayaan waxay ku faraxsan yihiin aragtidaada ma aragtidayda farxad bay la ooyayaan ayixii ma dhammaaday haa laakiin wixii oo dhan ayuu cunay tanna waa balaayo kale reer bani israa'iil ha guuraan hadday guuraan yaa canjeerada noo dubaayo kulligood waa in la dilaa وغركنا فرعون ونمبر وغركنا فرعون ونمبر وغركنا فرعون ونمبر وغركنا فرعون ونمبر حيت بورك أرنتان وحوا علون بدلا إنجلنا كترنا أرنتان كنا عمال سكسوت هاي مانتنا بورك يجيو إقرأ له بورك يجي war maxaa idinku dhacay war miyaad igu ciyaaraysaan hooyo waxaad arkay askartii fircoon oo la hadlaya muuse iyo haaruun haa hooyo mar kale wuxuu fircoon ka baryayaa muuse inuu musiibada ka qaado haddii aanu oofinin ballantiisana muxuu kaluu samayn karaa gabadhaydiye mar kasta wuxuu noo ballan qaadayaa inaan guurno haddana waa noo diidayaa muxuu aaminayaa ma aha rabitaanka muuse hooyo haa waa rabitaanka ilaahay markaan waxaan rajaynayaa inuu ballantiisa oofiyo haddii aanu oofinin ballantiisana waxaan sugaynaa ilaahay amarkiisa
aga tani waa imtixaan cusub oo fircawn iyo qomkiisa lagu imtixaamayo wuxuu yidhi fircoon haddaan naga qaada dhibaatada markaan waxaanu fasaxaynaa reer bani israa'iil laakiin sidiisii ayuu ballanta ka baxayaa siduu samayn jiray mar walbaba haa goormaynu meesha ka guuri doonaa aad baynu ugu raagnay boqorow webigii dhiil casbi isu bedelay ma waxaad u jeedaa wakhtiguu fatahayay baa la gaaray maya waa dhiig qulqulaya abba oonaa la dhimanayaa biyaha wax iga sii warho ka leexa bal aan fiiriyi meesha inay biyo ku jiraan hadda waa cabi karaayo maleeha akhas dhiig waay ka waran biyo ma ahan aga war maya waa biyo waxaa sidii mar walba dhici jirtay fircoon iyo qoomkiisu ka baryeen nebiyullaahi muusa calayhi assalaam inuu ilaahay u baryo si dhibaatada looga qaado laakiin fircoon sidiisii ayuu ballantii uga baxay oo uu diiday inuu nebiyullaahi muusa calayhi assalaam ku daro reer bani israa'iil oo uusan addoonsan warhamanow hee boqorow biyihii ma noqdeen sidoodii haa boqorow ma waxay noqdeen biyo caadi ah haa siday marka hore ahaan jireen war ninku sixir badana aga war maxay guryihiina calaamadda guduudan ugu samaynaysaan dee ilaahayga subxaana wa tacaala baa cadaab samada idinka keenaya oo guryaheennana ka ilaalin doona oo egan rabbigiina muu cid ku garanaya calaamadan sidaasuu nebiga iyaguna amray waanu samaynay wixii nala faray haa sidaasaad qorshaheenna ku dhammaaday guryihii oo dhanna waa calaamadaysan yihiin mase dhuumashaa baynu masar uga baxaynaa si kaleeto ma laha mar kastoo aan fircoon balan la galno waxaa waaya ballanteenna ma oofinayo ballan beenaalaha oo ilaahay wuu ka qaaday balaayadii muxuu noogu ogolaan waaya inaan guurno sheekadan ilaahay amarkiisa waaye ee sugbo dahabkii naagta dariskaada maad soo dhacday aniguba sidoo kale naagta dariskan ka soo qaatay dahabkii haye waa dumaynaa markaan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday nebiyullaahi muusa calayhi assalaam in marka habeenku uu gudcur noqdo oo ay madow noqoto uu kaxeeyo reer bani israa'iil boqorkaygiyow dad badan oo anaga naga mid ah saa ka dhintay waar waa maxay sheekadan sheeka fajaclaha waaye 70,000 ah hal mar dhimatay hal lama ka fakarnin kulli waa dhinteen hal loola ma jiro 70,000 sidee ma aqaana sababta boqorkiyo guri kasta waa laga oynayaa caawa maxay madaacun baa dilaacay maya kulligood waa caafimaadka reer bani israa'iilna guryahooda waa maran yihiin xaggay aadeenna way qaxeen kadib markay billaqaysteen dumarka dahabkoodii oo dhan waxaasoo dhan muuse iyo qoomkiisaa sameeyey boqorkiino maxaadna amraysaa marka soo kaxee ciidanka oo dhan waxaan dib u soo celinaynaa reer bani israa'iil waxa uu nebiyullaahi muusa calayhi assalaam la dhaqaaqay reer bani israa'iil oo kaxeeyey
isaga oo adeecaya amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin waxaa soo dabagalay oo ka soo dababaxay fircoon iyo ciidankiisii si ay reer bani israa'iil u soo qabqabtaan oo ay addoon uga dhigtaan laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala umuuraha wuxuu u maamulaa siduu doono ballanta nebigiisana waa uu oofiyaa hooyo ma mar kalead doonaysaa inaad biyo cabtid maya laakiin waa maxay waxani markii aan degno ayaan kaaga sheekaynayaa waxaan doonayaa biyo waxaan soo soconay muddo badan eegan jidkii waa soo xirmay war waxayna soo gaadhay fircoon iyo qoomkiisii ar weli masarba ma annagaaba ka baxnay alla innagaa ugu daran waxaanu soo qaadanay dahabkii dumarkooda waana kala soo cararnay markayna soo gaaraan qof naga noolaan maayo ilaahay uu naga qabo kuwaan ardaya fiiriya war waxaasi masiiga ar ciidankii fircoonaan umaleehaa waar tanaaba tii kale ka daran inta nolosheenna ka hadhay mastar baynu ku ahaanaynaa la haystayaal aga badina way naga horaysaa fircoonna wuu naga dambeeyaa maanta waan halaagsamaynaa ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى arabiyaana ka baqaa inay nagu soo daataan waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday nebiyullaahi muusa calayhi assalaam inuu la guureeyo addoommadiisa reer bani israa'iil isla markaana waddo badda dhexdeeda uga sameeyo isla markaana aysan ka baqanin in la soo haleelo oo fircoon iyo qoomkiisu haleelaan iyo inay baddu waxyeelayso toonada dhaqsada haye aan gaaro intay naga fogaan ma dhici karto dariiq badda dhexdeeda ka jeexmaya sixir waaye waa dhowihiin haddaan soo qabanaynaa aniga taas kuma kalsooni waarina dhaqaajiyo intaanay naga fogaan war aniga jidkaan kuma kalsooni waan ka baqayaa maad naga daysid war wakti ma haysana ina dhaqaaji waxaan u malaynayaa arrintan inay shirqool tahay arrintan inay shirqool tahan u malaynayaa muuse uu nagu shirqoolayo fircoon bayna soo gaarayaan warina dhaqaajiya aan ka cararne muuse wuxuuna amray inaan istaagno laakiin waxa waaye hadday fircoon iyo dadkiisana qabtaan dadiifkeenna qaacaya maanta
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. fircoon markii uu arkay inuu biyaha ku halaagsamayo ayuu wuxuu yidhi waxa aan rumeeyey ilaaha ay rumeeyeen reer bani israa'iil waxaanan ka mid ahay muslimiinta. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jawaabay fircoon ma hadda oo aad aragto inaad halaagsamaysid ayaad sidaa leedahay adiga oo noloshaada oo dhan ilaahay soo caasinayay adduunkana fasahaadiyey oo kuwa wax fasahaadiya ka mid ahaa maanta waanu waarinaynaa jirkaaga si kuwa adiga kaa dambeeya ay aayad ugu noqoto in badan oo dadka ka midihina aayadaheenna way ilowsan yihiin.